odayaasha iyo waxgaradka bariga magaalada Berbera ayaa waxa ay ka cawdeen dhul ay sheegeen in si xaq darro ah ay u bixisay dawladda hoose ee magaalada Berbera sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Xamza Ahmed Saciid. odayaasha waxgaradka dhalinyarada ka soo jeeda bariga magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ayaa walaabaan ka muujiyay dhul ay si xaq darro ah u bixisay dawladda hoose ee magaalada Berbera. dhulkan oo ah hanti guud waxaana ay u soo jeediyeen maayirka magaalada Berbera xogayaa fulinta dawladda hoose. geesta kalena waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha taliyaha booliska iyo wasiirka howlaha guud waxayna sheegeen in arrinkan si degdeg ah wax looga qabto baaqana xukuumaddu dhagaha u furto waana kuwan iyagoo amuurahaasi ka hadlaya wararood ee ku taalay bariga magaalada Berbera gobolka Saaxil ee cid kasta garanaysa qadiimiga dawladdii Cusmaaniyadii iyo dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyo mudana Muuse Biix Cabdi afar madaxweyne ka horreeyay meesha waxay ku tilmaameen oo aan la isku khilaafsanayn oo la isku raacay inay tahay muunadii magaalada Berbera cid kasta arrinka way ka dheregsanay cid kasta oo taariikhda ogi way ka dheregsanay arrinkaas kuma khilaafsanayn maanta waxaanu doonaynaa halkan inaanu ka tusno in guudkeedii la dhisaayo oo dhakada guriga laga saaray iyadoo magaaladii Berbera aanu dhaweyn oo u jirta ama ka horreeyay ka maanta guudka ka dhisaya ee meel allaala meel laga soo kaxeeyay iyo meelu ka yimi iyo qorshe lagu siiyay aan garanayn lix sharci oo ka horreeyay baa gobol loo doontay lixdaba dawlad baaqaanu diraynaa waxa weeyaan Berbera waxa ka jirta oo maayirku koow ka yahay koow waxa ka jirta ummad iska horkeen isa suris foodo dhul boob sharci u sinaan la'aan intaas ka wada aan taaganahay markii horena dadka muwaadiniinta qof kasta oo yiraahdo waan dhisanay loo diiday annagoo deegaankaana loo diiday wax weeyaan waxa kaliya aanu kaga xishoonay markan la yiraahdo waa dan guud oo qarankaade la hooda dan guud weeye wax weeyaan taa qaranimada ayaanu ku liqeen maanta laakiin waa badheed waa nin deegaan riix waa nin doonaya in dadku isku dilo meesha waa nin doonaya inay dhibaato ka dhacdo waxaan leenahay maayarka iyo dhalinyaradan agaasimaha howlaha guud iyo madaxa dhulka iyo muxuu ahaa saddexda taliye saldhig iyo muxuu ahaa taliye qaybeedka haddii sida aan u hadalno waxa weeyaan annagu waxaan u aragnaa dad isku wada jaada oo nagu soo duulay oo si arxan darro ah weliba noola dhaqmay oo aan waxba nagu ixtiraamin annaguna qarannimadaanu eegayna halkani waa halkii aan lugta ka soo geli jiray anigu markii aslamta aan ahayn raggii lugta ku soo geli jiray Berbera wallaahi billaahi wallaahi annaka mooyaane nin lug ku soo galaa ma jirin maanta halkaa dhinac cidiniya ka bareeyay kuwa la nooca wax weyn raggii lugta ku soo geli jiray bana maanta qarannimadaan ixtiraamin ma aanan garan waayin inaanu dal ku soo galay intaan qoryahayaga qaadano waxaanu eegina qarannimadaan eegina walaalnimadaan eegina islaamnimadaan eegina laakiin halkan la eegi waa madaxweynaha waxaanu ka codsanay waanu baaq u diray halkaa gumburta haddii qaranku qaadanayana qarankaanu daynayna wasaaradda howlaha guud haddii ay iyadaa ballayninka ilo ku shaqo leh halkan annaga inama yara noo ballayn garayn maayaana qaranku waxa ka qabto hadduu qaranku waxba ka qaban waayo dee wax weeyaan ileen deegaanka ilma yar uga yaaci meelle dee waan talaan isugu noqonayn madaxweynaha aad iyo aad baan madaxweyne nin sharaf laadahay nin waxyaabaha qaar ka dhiidhiyaadahay dee waxaanu ku leeyahay madaxweyne hoos eega waxaanu ka hadlayna wasiirka arrimaha gudaha waxa leelo war inaad xogayaha naga bedel adigu haddaad ilaahay garanayso waad islaam tahay inaad intaanan kaa war dadkii galbeedka iyo barigaba uu dhibay war ilama 10 inanoo yaro daaqodaa wey isagaa u madaxa annagu inaanan maayarka oo keliya dee ku xirqin war xogayaha ka xun maayarka inaad dawladdu ha naga bedesho kaa ummad ahaan baan uga cabanaa reer bari ahaan annaga yaalla gobolka Saaxil ama si degmada Berbera sharci loo siman yahay oo cadaalad lagu bixinayo maaha waa mid shaabada cid gaar soo hayso iyagu ay isku dhufanayaan taasuna wax dadku ay ka duulahaanayaan maaha haddii ay xukuumadda Sabiixi waxba ay ka bedelaysaa waan islahaynay baaqaan u dirayna waa mid caafimaad qabo marka hore mid cuduraysan maaha waxaanu leenahay inaad madaxweyne ka damqataa adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasta ay qusaysaa wax kasta geersiin buu sameeyay
25 kilomitir baa iminka ay sii socotaa iminka seesaska iyo hadalka dhul daaqsimeedka maraya haddii aan la beedankeeda leeyahay cid gaaraba waxa wada xamse axmed xamse garaa telefishinka caalamiga Soomaaliya ee Balxarunta magaalo xabeedka Berbera.